waxay meesha iloobeen in laba dawladood markii hore midoobeen adduunyadan ay u sheegayaana waa adduunyadii nidaamkan dawliga ee Westphalian kaba keentayba waa gumeystii xorriyadda aanu ka qaadanay ayay u sheegayaan in wax Somaliland la yiraahdo uu jiri jirin ka bacdina Soomaaliya ay mid ahayd khaladaad geographic bay galeen sharci bay galeen oo in laba dawladood midoobeen mid juqraafiyeed bay galeen oo British Protectorate of Somaliland oo from Zeyla ilaa iyo Tukaraqahido la garanayo ay garan waayeen mashruuciisii Trump project 25 waxa uu xusay in xiriirka ama danihiisa Djibouti uu soo yaraanayo mar la weydiiyay Somaliland ma ka helaysaa base hadaad ka hesha ka warana wuxuu yiri waa great labadiiba markaa meesha maanta ku dhex dagaalamay labada qodob waxay keenayaan in ma aragtay Mareykanku dhinacan Somaliland iyo Israa'iil uu soo janjeeray Soomaaliya waxay doonaysay in meesha uu ka soo baxo resolution ama qaraar cambaarayna tii way ku fashilantay ma dhicintaasi marnaba lama oran wixii debate bay noqdeen iyo doodaasi markaa waxay keenaysaa in dad badan ay isweydiiyaan warkiiskan laga hadlayo waa maxay maanta Somaliland markii lagu dhawaaqay dad badan way isqaniineen oo banaanka yimaadeen marka dawladahan moodayno daris wanaagsan iyo kuwa aan arrimo dhaqan iyo diin ku fogeynayno ayaa mararka qaar danta siyaasadeed noqonaya mid Somaliland u dana marka dawlad ahaan iyo shacab ahaan iyo aqoon-yahan ahaan iyo media ahaan loo diyaar garoobo in aanu talaabooyinka xiga aanu kii qalin haysta qalinka uu ku difaaco kii qori haysta qori buu ku difaaci doonaa kii kamarad haystana uu kamarad ku difaaco wahagaag daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo falanqayn ku saabsan aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland ay ka heshay dawladda Israa'iil iyadoo oo xalay un adogeydeen sidii qaramada midoobay ay uga doodaysay aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland halkaasi oo dawladda Soomaaliya kadib markii ay ka carootay aqoonsigaasi ay golaha ammaanka qaramada midoobay horgeysay dood la xiriirta arrintaasi haddaba si aynu u falanqayno arrintaasi iyo waliba dooda sharci ay Somaliland ku taagan tahay hadiiba ay fursad ka heli lahayd qaramada midoobay in ay ka hadasho waxaa haatan igula sugan studio-ga KF Media TV ee magaalada Hargeysa Dr. Sakariya Bade oo ah agaasimaha guud ee Komishanka Doorashooyinka Jamhuuriyadda Somaliland isla markaana shahaadada PhD-da ka haysta jaamacadda Ankara ee dalka Turkiga Dr. marka hore agaasimo guud waan ku soo dhaweynayaa aad iyo aad baad mahadsantahay Khalid waan ku dhawahay waad mahadsantahay mar labaadka waxaanu la wada soconnaa xalay toole qaramada midoobay gaar ahaan golaha ammaanku waxay si weyn uga doodayeen waa qadiyada aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland kadib aqoonsigii dhex maray ama aqoonsiga Israa'iil ay Somaliland siisay 26 bishan aynu ku guda jirno ee December bal si kooban marka laga soo bilaabo xalay wixii dhacay doodii dhacday ilaa maanta warbaahinta adduunku sida u qaada dhigaysay maxaad nooga sheegi kartaa ku soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim si aan ugu dhigno si cilmiyeysan oo aan qof walba u fahmi karo dooda meesha taali waxaanu qaadanaynaa formulo aan ku fahanno oo ah dooda cidda soo dhigtay dooda kale ka soo horjeeday iyo maxaa ka soo baxay oo meesha aan u soconaa marka thesisku ama doodu waxay ahayd in Soomaaliya ay tiri ka soo horjeeday oo shirkan iyadoo ay codsatay aqoonsiga Israa'iil aqoonsatay Somaliland antithesiskuna wuxuu ahaa in Israa'iil ay difaacisay talaabada ay qaaday synthesiskuna wuxuu noqon doonaa waxa ka soo baxay inagu aanu haatan falanqayn doono saan ogeyn Soomaaliya kulanka codsatay doodii waa la bilaabay waa la wada hadlay media waxay soo tabiyeen waxyaabihii kala duwanaayo wadamadu ay istaageen wadamadii markaa waxaanu kala qaadaynaa 3 wadamadii Soomaaliya oo ma aragtay iyadu kulanka codsatay oo arrinkan emergency ahaan u codsatay 2 wadamadii kale dunida ka falceliyay ee yiri waxaanu taageersanahay qadiyada ma aragtay iyo midnimada Soomaaliya iyo Israa'iil iyo Mareykanka oo dhinaca waxa macnaha sameynay markaa waxa weeyaan wadamada Ingiriiska Faransiiska Carabta South Africa badhe iyaga kamaanu filayn inay Somaliland taageeraan oo yiraahdaan wal Israa'iil way ku saxsantahay inay Somaliland ay ictiraafto iyaga lagama filayn marnaba waayo iyagu inama ictiraafin wali iyaga xiriir lamaanu sameyn kamaanu filayn dantoodiina meeshan kuma dhaxarki karaan waxa meesha labada danood isriixay waxa weeyaan danta Israa'iil iyo danta Somaliland iyo Soomaaliya meesha taagan iyaga marka waxba ficilso ma noqonayso ma oran karno ma aragtay meeshii waxba kama soo bixin oo ilaan iyagu inama ictiraafin wali marka iyaga dantooda ay timaadeen xiriir la sameeyno ayaan iyaga reaction noocaas ka fili doona labada meelood muhiimka ah reaction ka filayna waxa Mareykanka iyo Israa'iil si fiican bay u difaacday doodoodii
qodobo sharciye keeneen historical maaragtay wixii u dhacay bay si fiican u qaadaa dhigeen doodoodiina way sababeeyeen maraykanku isaguna ahaa actorka ugu weyn ee meesha joogay oo wax badan laga filayna wax Soomaaliland dan u ah ayuu raacay isagu weli nama aqoonsan waan istiri gareyn doonaa buuri waan darsi doonaa which means talaabooyinka ay qaadaan Maraykanka iyo Israa'iil iyo teamkan ay qaadaan ma aha mid caadifad ku dhisan ma aha mid degdega mudday daraaseeyaan kadib bay go'aan gaaraan marka iyagu laakiin waxa ugu weyn la kood gareyn karo wuxuu yiri waxa weeyaan inuu yiri positionka iyagii wali anaga ismu bedelin macnaheedu taa waxa weeyaan maan diidin aqoonsigan Soomaaliland way dhinacan kale wuxuu sheegay in Israa'iil ay xaq u leedahay cid ay aqoonsanayso hadalkoogina aad buu koobnaa wuxuu yiri anaga positionka iyagu isma bedelin waxay ku dhaqmayaan marka falsafadii Kant oo ah when the facts change I change my mind markay daraasadooda dhameeyaan Soomaaliland maxaa dan idinku jira ay maan kooga bedeli doonaan laakiin imika inagama soo horjeesan marka wax fiican oo positive la sheegi karo waxa weeyaan in doodii ay dhinacan kale martay wadamada kale iyagu de fikirkooga dhiibtay iyagoo kamaanu filayn laakiin Soomaaliyana wax strong oo dood evidence cad oo weyn meeshaasi lama iman conclusionku marka waxaan oran karnaa synthesis waa ka waxa meesha ka soo baxay waxa weeyaan in doodii wali dhinaca i'tiraafka Soomaaliland ay u janjeedo taagan tahay wadamada kalena markaasay iman doonaan maxay Soomaaliya markaa doonaysay inay doodan ka soo baxdo Soomaaliya waxay doonaysay in meesha uu ka soo baxo resolution ama qaraar cambaarayna tii way ku fashilantay ma dhicin taasi marnaba lama oran wixii debate un bay noqdeen iyo doodaasi markaa waxay keenaysaa in dad badan ay isweydiiyaan war kiiskan laga hadlayo waa maxay kiiskan laga hadlayo Soomaaliland waa maxay akademiyada haday noqoto cilmi baarayaasha researcherska policy makerska dawladaha laftooda inta badan wasaaradaha arrimaha dibadda waxay leeyihiin macaahid daraasaysa arrimaha dibadda maanta waa hot topic weeyaan qof walba gaab uu raadinaya uu ka soo galo arrinka marka arrintaas marka Soomaaliya halkii ay iyadu benefit ku heli lahayd iyadun bay culays ay u keentay marka xitaa doodooda justificationka ay sameeyeen ama evidence ay keenayeen wax adag ma ahayn dhowr khaladaad bay galeen oo waaweyn waxay meesha iloobeen in laba dawladood markii hore midoobeen adduunyadan ay u sheegayaana waa adduunyadii nidaamkan dawliga ee Westphalian kaba keentayba waa gumeystii xorriyadda aanu ka qaadanay ayay u sheegayaan in wax Soomaaliland la yiraahdo una jirin ka bacdina Soomaaliya ay mid ahayd khaladaad geographic bay galeen sharci bay galeen oo in laba dawladood midoobeen mid juqraafiyeed bay galeen oo British Protectorate of Somaliland oo from Zeyla ilaa iyo Tukaraqaaydo la garanayo ay garan waayeen nidaamkii dawladnimo lagu doodayay legalkiiba meeshii ka boodeen oo reeray magac dhabeen marka arrimahaas waxay keenayaan ba hadhowto in doodoodu ay dalba yeelato imika already dalba leedahay inay cid gaar ah target ku yihiin doodooduna ayna sharci iyo siyaasad iyo logic ayna ku dhisnaan waa la dooday xalay qaramada midoobay arintii qadiyada ama aqoonsiga Soomaaliland si weyn baa wadan kastaba aragtidiisa uga dhiibtay labada dal ee sida weyn warkooda ay Soomaaliland u filaysay isla markaana sidii ay rabtay ay u badnayd in ay dooda u jeediyeen waa Mareykanka tiri iyo Israa'iil doodii kadib warbaahinta adduunka dadka wax falanqeeya qaabka ay u dhigeen gaar ahaan warbaahinta Turkiga la arkayay tashiinaha la arkayay waxa la arkayay warbaahinta Mareykanka warbaahinta Carabta sida u dhigayeen bal ka waran arrintaasi synthesis-ka aanu sheegayno waa maxsuulkii meesha ka soo baxay qof walba caqli lana sida imika inagu aan u falanqeynayno marka laga yimaado caadifada shiinuhu ka soo horjeeday Turkigu waxa weeyaan dana ugu weyn isaga Soomaaliya kala stakeholder-ka ugu weyn problemskan maanta uu ku eedeynayo Soomaaliland uu leeyahay geeska Afrika keenaya already saga keen Muqdisho wuxuu ka dhisanayaa base buu ka dhisanayaa uu gantaalada 200 km xeebtiisu uu ku yar yahay gantaalo 200 km gaari kara uu ku tijaabiyo haddana wuxuu qorayaa in Mareykankii maanta uu maaragtay qadiyadii Soomaaliland uu taageeray waayo diplomatic language waxa weeyaan mar haddayna oran anagu waanu ka soo horjeednaa 1 minute bay hadleen waa short and sharp uguma talagelin wax kale in laga fahmo halkii minidna waxay isbarbar dhigeen waxay xitaa cambaareen kulanka la iskugu yimid waxay yiraahdeen iyadoo dawlado kale la aqoonsanayo sabab kulankan Israa'iil cid ay la xiriirayso kulan degdeg looga yeedho ma jiro waayo idinku Falastiin baad aqoonsataan bay yiraahdeen laakiin kulan degdeg lama codsado marka wadan walba Israa'iil iyada xaq u leh cid ay aqoonsanayso bay yiraahdeen arrinka kale waxa iyaga position-koogiyo na cadeyn hadduna cadeyna wuxuu u janjeeraa dhinacii Soomaaliland waayo waxay yiraahdeen position-kaygu wali isma bedelin laakiin
time and space ama duruufo markay imaadaan wuu isbedeli doonaa. way doctore waxaa la yiraahdaa inta badan markaasoo taasi run ka dhigi mayso wararka dadka qaar ay isla dhex marayaan in Mareykanku arrintan baa isagu buddig u ahaa marka hore maadaama Israa'iil iyo Mareykankuna ay yihiin laba dawladood oo xidhiidh aad u qoto dheer. yes aad iyo aad Mareykanka laba mas'alo oo khilaafiya imka ka dhex taagan mashruuciisii Trump project 25 waxa uu xusay in xidhiidhka ama danihiisa Djibouti uu soo yaraanayo. mar la weydiiyay Somaliland ma ka helaysaa base hadaad ka hesho ka warrana wuxuu yidhi waa great. labadiiba markaa meesha maanta ku dhex dagaalamay. labada qodob waxay keenayaan in ma aragtay Mareykanku dhinacan Somaliland iyo Israa'iil uu soo janjeero dhinac kale marka laga eegana ka soo bilow wadamadan badda cas ilaa iyo Gulf of Aden kulaala meesha kaliya dimuqraadiyadda ka jirto ma aragtay la hubo berri maxaa dhici kara waa Somaliland. waxaad ka soo bilowdaa Masar, Suudaan, Eritrea, Djibouti intaasiba badda cas bay kulaalaan dhinacan kalena Sacuudiga iyo Yemen baa ka xiga. meesha kaliya markaa dimuqraadiyadda ay ka jirto ee la oran karo the following 30 years lix madaxweynaha la filaya waa Somaliland weeyaan. arrimahaas markaa waxay ku soo jiidayaan in ay ukuntooda meel safe ay dhigtaan markaa. marka Mareykanku waxa leedahay uu dan gaara way muuqataa inuu ka qabo Somaliland oo uu xiiseynaya. yes way muuqataa absolutely way muuqataa. midda kale waa kan Israa'iil ku taageeray cid doonto iyada aqoonsan karta. arrinkaasi markaa wuxuu eegyahay in isaguna uu soo socdo daraasadiisa. marka inaguna waa inaan si diyaar garownaa daraasada ay sameyn doonaan oo already socotaba waa inaan u diyaar garownaa sidii aanu contribution-ka ugu badan si positive aqoon-yahan ahaan saxaafay ahaan cid walba oo danaysa qadiyadda Somaliland aan diyaar ugu noqono. way Somaliland hadiiba ay fursad u hesho in ay ka doodo qaramada midoobay gudaheeda maxay doodeedu tahay? dooda Somaliland waxay noqonaysaa in ay horta dooda ugu weyn waxa weeyaan maanta soo shacbaxday sharci ahaan Afrikana xanafta ka ilaalin doonta inayna Somaliland goosanayn oo succession ayna ahayn laakiin ay tahay wadan jiray oo ma aragtay dib ula soo noqday xorriyadiisii marka heshiiska dawliga wakiilka Israa'iil uu ka hadlay dawladaha shuruudda u ah waxa la yiraahdaa Montevideo Convention 1933 ayaa la sameeyay. wuxuu leeyahay wadanku waa inuu leeyahay population 6 milyan baa meesha ku nool. labo waa inuu leeyahay geographical location oo maamulo. Somaliland العلي 8 jeer ba Israa'iil iyo Falastiin oo la isku daray ay ka weyn tahay waana defined territory de facto governance inuu ka jiraayo dawlad rasmiya ayaa meesha maamusha. qodobkii afraad ayaa maanta buuxsamay oo ah inay leedahay capacity ay xiriir kula samaysato wadamada shisheeye marka capacity-gi maanta uu jooga inta waxa dheer oo competitive advantage oo wadamada Gulf of Aden iyo Red Sea ku taxan oo dhan ay dheer tahay in democracy tahay. the more democracy uu jiro waa more stable waayo madaxweynuhu sidoo ku imaado iyo sidoo ku tago waa la garan karaa. inta waxa dheer hadaba qodobka sharciga ee Soomaaliya ay ku celcelinayso koodka ugu badan waxa weeyaan sovereignty oo madax banaanida territorial union oo ah in wadanku uu midaysan yahay in la kala qaybin karin. arrintaas arrin sharci baa meeshan taal oo Somaliland ay ka faa'iideysan karto. 60kii markii la isku biiriyay hal sharci oo labada dhinac ay kala saxeexdeen oo maanta la heli karo oo Somaliland dabar ku noqon kara ma jiro. waa kow. arrinka labaad waxa weeyaan UN markii ay soo dirtay la taliyahoogi Paolo Contini oo 1960-64 la taliyo oo ahaa UN-ka arrimaha union-ka si uu u daraaseeyo wuxuu sameeyay report final report-kii wuxuu sheegay in Union of Somaliland iyo Act of Union-kii Soomaaliya labadoodiiba markii la daraaseeyay conclusion-kii ama result-kii wuxuu noqday in wixii wax cilad badan u yahay legally defective oo lagu midoobi karin. UN-ku discussion bay ka galeen waxay yiraahdeen sharcigaasi wuxuu la yahay waxa la yiraahdo lack of force of law ama fulintii baaba ka maqanba waxay laba dal ku midoobi karaan ma result-kiina wuxuu noqotay in waxaas midmidow u galayo mustaqbalka waana tamaanta taagan marka tusaale ahaan waxay yiraahdeen sharcigani ma caddo in la ansixiyay intayna midoobin ka hor sidoo kale ma caddo cashuuraha ama tacriifada mata Somaliland ba la qaadanaya mise ta Soomaaliya la qaadanaya marka meesha wax lagu heshiiyay ma oolinba. arrinta marka meesha waxay ka saaraysaa oo Somaliland inay leverage u qaadato ay tahay
in sharci uu jirayba warka territorial integrity iyo madax banaanidan sharciba ma ahaynba iyo madax banaanidan ay sheegayaan waxay ahayd wax maaragtay emotional oo Soomaali la raadinay laakiin wax sharciya oo maanta la heli karo ma jiro bal reportka ninka UN-ta uu qoray Polo Cantinio kale iyo documents kale waa la helaya wagaag Israel markay noqoto aqoonsigan ay hadda bixisay ay Somaliland siisay Somaliland muxuu ku hagi karaa Somaliland horta wuxuu ku hagi karaa in ay influence adduunyada ay ku yeelato oo de wadan buuxa ay noqoto Israel waan ognahay awoodeeda si positive iyo si negative oo isticmaasha laakiin marka danta Somaliland la eego de fagaaraha UN-ka in maanta la gaaro oo inta soo wadan iskugu imaadaan oo miiriyuhu 4 maalmood uu ka shaqeynayo waa kan tiknoolajiyada waxbarashada caafimaadka wax walba xiriirkaasi wuxuu noqon karaa mid laga faa'iidi karo sidoo kale mainstream media waxa gacanta ku hayo wax weyn Israel iyo xulafadeeda arintaana marka qadiyadii Somaliland meel ayna weligeed gaari jirin bay ay gaadhaysaa maanta waxaan akhriyay in hot debate oo bilaabmay akademiyada oo ah in nidaamkii dawladuhu ay ku dhismi jireen maaragtay dawlad madax banaan sovereign state oo awal la daraasayn jiray oo in dawladdu ay iyadu ciday doonto ay madaxtinimo siin karto madax banaani siin karto iyo ama wadanka la yiraahdo parent state iyo in ay iman kartaba dawlad earned sovereignty dusha kaga timaado oo amnigeega iyadu sugta muddo 30 sano soo shaqeynaysay dawlad ma noqon kartaa marka laga imaadaba conventionskii hore hot debate baa marka maanta meesha jira marka fursado badani way imanayaan sidoo kale dhinaca negative-ka marka la eego waxa imanaya cadow badan oo Somaliland yeelanayso marka oo badan in laga taxadiro diblomaasiyadu waa xaqii safiirka wuxuu yiri Sharmaake waa qofka u dambeeyo qosla maanta Somaliland markii lagu dhawaaqay dad badan way isqaniineen oo banaanka yimaadeen marka dawladahan moodayno daris wanaagsan iyo kuwa aan arrimo dhaqan iyo diin ku fogeynayno ayaa mararka qaar danta siyaasadeed noqonaya mid Somaliland u dana marka labadaaba way jiraan oo maaragtay cadow badan bay yeelan doonaan yes waa run oo wadamo waaweyn ay ka yihiin oo Turkigu ka yahay Turkiga anagu PhD kan ku soo sameynay diblomaasiyadoodu ay iyagu waliba Soomaaliya ay la lahaayeen tan Israel waxa weeyaan laba dawladood oo isaqoonsan iyaga waxa la yiraahdaa insani dish policy oo humanitarian foreign policy hadda eeg laba mutual maaha iyagu say u aqoonsan yihiin oo Soomaaliyana waxbay Turkiga tartaa Turkiguna waxbu Soomaaliya taraya maaha laakiin waxa haystaan meel ay caawinayaan laakiin soo xaqiiqadu maaha in Turkiga laftarkiisu dan badan Soomaaliya ku qabo sidoo ulahayn Turkish Airlines faa'iidada ugu badan Muqdisho ka keentaa berigi markaan anagu meesha joognay 70% khayraadkii badda Soomaaliya qaadanaya shaqaalihii Turkiga airportkii Muqdisho laga cabanaya marka waxyaabahaas oo dhani iyagoo jira hadana in ma muujinayo in Somaliland xitaa media ayaa dagaal badan ku jira marka arintani arin waqtigeega timiday weeyaan tala ahaana waxaan soo jeedin lahaa in dawlad ahaan iyo shacab ahaan iyo aqoon-yahan ahaan iyo media ahaanba loo diyaar garoobo in aanu talaabooyinka xiga aanu kii qalin haysta qalinka ku difaaco kii qori haysta qori ku difaaci doona kii kamarad haystana kamarad ku difaaco aad baad maastaagas waa hagaag daawadayaalkaasina waxa uu ahaa Dr. Sakariya Bade agaasimaha guud ee guddiga doorashooyinka Jamhuuriyadda Somaliland oo dabcan aanu ka wareysanaynay wararkii ugu dambeeyay iyo waliba xaaladda aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland iyo Israel iyadoo xalay aad la wada socoteen in qaramada midoobay ay qodobkaasi si weyn uga doodaysay tan iyo wareysi ka lamid ah intaanu ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo